waa qaybtii shanaad qisadii la magac baxday caashiqii hoyan waayey hormuud baa u soo dhacay. hani waxay la yaabtay sida ay Faadumo ku garatay magaca Liibaan. waxay ku jawaabtay, haa, laakiin ma garanaysaa mise naayaa tuugan saqajaanka ah oo ilaahiisa ka furtay yaa ku baray, ayay si kulul u weydiisay Faadumo oo indhaha cadaynaysa. waagaa ku baryay hani, waa wiilkii caawiyey oo aan kaaga sheekaynayay, ee sabab tuug maxaad u dhahday? midkaan xaafaddii islii dhan laga yaqaano oo dadka Ilaahay dhibay kuma caawinayna dan kale ayuu ka watay, ayay ku warcelisay Faadumo oo hadalkeeda ku sii dartay, Ilaahay wuu ku jecel yahay haniyey, af libax ayaad ku dhici rabtay. hani warka loo sheegay ayaa qaracan ku noqday. waxay Faadumo ka codsatay inay yara sugto si arrinka ay uga soo fikirto. sida lagu yaqaano hani markay xanaaqdo qolkeeda ayay isku soo xirtay. meeshaas ayay tiiraanyo uga bilaabatay. mar waxay dib u milicsataa galabkii uu Liibaan naftiisa u huray, marna sifaha laga bixiyey oo khatar nafteeda ku ah ayaa dareenkeedii dila. 30 daqiiqo markii ay arrinta gorfaynaysay, waxay go'aan ku gaartay in Faadumo warkeeda ay iska hubiso, waayo waa markii ugu horreysay oo uu wiil qalbigeeda dego. waxay u timid walaasheed ka weyn oo ay u bandhigto go'aankeeda. Faadumo war kale uma sii gelin, waxay qabatay gacanta. inakeen soo caddayn ma rabtid, ayay tiri. meel dheer sama geyne, waxay u tageen gabar wiil iyo 2 gabdhood haysata oo Xaliimo la dhaho, dabaqa ku dheganna degan. Faadumo iyo Xaliimo aad ayay isku yaqaanaan, muddana wax ayay soo wada baranayeen. salaan iyo isxaal waraysi kadib, Faadumo ayaa hadalka bilowday. saaxiibay adduunyo wax aan la arkaynin ma lahan. hani waxay isbarteen Liibaan, qalbiga ayuuna ka xaday. markay intaas hadalka marsiinayso, hanina ay warkooda qiimaynayso, ayay si aan la aamini karin u arkeen Xaliimo oo indhaheeda ilmo ka soo daadanayaan. fajac ugama horeyn markaas hani. abbaaya maxaa ku helay, ayay hani tiri. Xaliimo oo iscelin la ayaa hadalka ku soo koobtay, wixii aniga igu dhacay miyuu rabaa inuu hani ku sameeyo? Faadumo oo rabta in Xaliimo qalbiga u dejiso ayaa tiri, iga raali noqo saaxiibay, ma rabin inaan arrinkan soo faagfaago, nabaradii horena ku soo xasuusiyo, ee waxaan rabay hani inaan caddeyn uga dhigo. Xaliimo oo ah qof Ilaahay karti ku manaystay ayaa u wacday wiilkeeda curadka oo 7 jir ah. wiilkayga Mahad ayaa la dhahaa. Liibaan markaan u lahaa uurkiisa ayuu iga dhaqaaqay. wiilkiisa wuu inkiray. waxaa u dheer heer wuxuu gaaray uu guurkeenna xitaa dafiro, ayay tiri. sidii qof jug culus kaga dhacday madaxa, hani 5 daqiiqo ku dhowaad wax dhaqdhaqaaqa waa laga waayay. sidaas ayayna ku quusgoysay, welibana nacayb saa'ida oo ay Liibaan u qabto ayay goobta ka soo qaaday. waxayna go'aansatay inay gebi ahaanba isaga tagto Kenya, safar ayayna u diyaargaroobaysaa. Axmed dhankiisa wuxuu rajaynayaa inuu soo hagaajisto taleefankiisa oo ka hadlaysan, si uu nambarkii uu Liibaan ka soo qaatay u garaaco, gabadhiina uu raadsado. galab walba wuxuu u tagaa oo uu dukaanka ku weheliyaa wiil saaxiibkiis ah oo dharka dumarka ku iibiya suuqa Garissa Lodge ee xaafadda Islii. isaga iyo saaxiibkii oo sheeko xasaasi ah wata, waxaa dukaanka soo galay hani iyo Faadumo oo raba inay ka adeegtaan dukaanka. Axmed loogama baran inuu indhihiisa dumarka la raaco, balse markan wuu iscelin waayey. wuxuu aad ugu riyaaqay quruxda iyo haybadda hani ka muuqata. abbaaya soo dhowow, adiga dartaa mar qura dukaankii ayaa noo iftiimay, maxaan kaa iibinaa ayuu weydiiyey. la soco qaybaha kale. qaybtanse maxaa kaaga baxay? hadduu jiro qof asxaabtaada ka mid oo aad jeceshahay inuu qisadan kula akhristo, halkan uga wac oo meeshan dheh, siina sheer gareeya.